daawadayaal ku soo dhowaada saxafi films oo markasta idiin soo tabisa taariikhda iyo sheekooyinka ka dhaca dalkaasi Hindiya gaar ahaan shirkadda Bollywood-ka jilayaasha caanka ka ah. waxaynu ku falanqayn doonaa sheekadii taariikhda ahayd ee dhex martay Ajay Devgan, Kajal iyo Shah Rukh Khan. haddaan guda galno sheekada, qisada jacaylka ahayd ee dhex martay Ajay Devgan iyo xaaskiisa Kajal waxay ka mid tahay sheekooyinka jacayl ee dhabta ah ee ugu xiisaha badan kuwooda laga diiwaangeliyey shirkadda aflaanta dalkaasi India ee Bollywood-ka. Ajay Devgan waxa uu ahaa shakhsi xoogan, waxa uu ahaa wiil aamusnaan badan, waxa uu ahaa shakhsi aan marnaba caadaysan inuu sheego hadallada waxba kama jiraanka ah. ha yeeshee Kajal waxay ahayd gabar farxad badan, shakhsi soo jiidasho leh, isla markaana jecel inay dadka oo dhan xiriir wanaagsan la yeelato. Ajay waxa uu go'aansaday inuu xiriir jacayl la sameeyo Kajal, isla markaana uu qalbiga ku dajisto kadib markii ay kala hareen gabadhii ay xiriirka jacaylka wadaageen waqtigaasi atirishada weyn ee Bollywood-ka ee Krishna Kapoor. xiriirka Ajay iyo lamaanahan wuxuu ka bilowday aflaantii Huljul iyo Gondoraj. labadaas filimba waxaa la waday sanadkii 1995, balse aflaantaasi ay hogaamiyayaasha ka ahaayeen Ajay iyo Kajal ganacsi wanaagsan kama aysan samaynin box office-ka dalkaasi Hindiya. waxay sabab u noqdeen inay xiriir jacayl oo dhaba dhex mara Ajay iyo Kajal. waqtigaasi Ajay waxa uu ahaa xidig sare, halka Kajal ay ahayd xidig u soo baxaysa shirkadda filimada sameysay ee Bollywood-ka. aflaanteedii markii dib loo eego, filimkii Bazigar oo ay sameysay 93kii iyo filimkii kale oo ay sameysay 95kii Kareena Arjun oo labaduba ay la jeshay Shah Rukh Khan, ayaana shacbiyad sidaa u weyn aysan ka helin dhanka Bollywood-ka. haddaynu tan Shah Rukh Khan wax ka taabanno, si weyn ayuu ayada uga helay shaqo ahaan. waxa uuna sheegay saxaafadda, si wanaagsan ayaan isku fahansannahay jilliin ahaan. Kajal waa gabadh aan jeclahay inay ila dhalato, sababtuna waxa ay tahay waan ku riyaaqaa markasta oo aan shaqo la wadaagayo. Kajal waxay haysataa wax walba oo looga baahnaa atirisho, wiil qurux badan ayay saaxiib la ahayd oo jacayl ka dhexeeyey. xirfadeedu waxay ahayd mid guula xambaarsan, sidaa daraaddeed filim sameeye kasta iyo shirkad kasta oo filim maalgelinaysa ayaa albaabkeeda soo garaacaysay waqtigaasi. dabayaaqadii sanadkii 1995 waxaa wacdara xoogan ka dhigtay filimkii Dilwala Dulham Le Jayenge. filimkaasi waxa uu noqday mid ganacsi ahaan guula lixaad la gaaray, wuxuuna bedelay xirfad jilliinka Kajal. shakhsi kasta ayaana ammaanay wadajirka shaqo ee Master Shah Rukh Khan iyo Kajal. wixii intaas ka dambeeyey, saxaafadda ayaa tooshka ka daba qaadatay, marka arrinta weji kale ayay yeelatay. inta badan wargeysyada ka soo baxa dalka Hindiya ayaana bogogooda hore ku qorayay inuu jacayl ka dhexeeyo Kajal iyo Shah Rukh Khan, inkastoo ay xaqiiqadu tahay inuu xaasla ahaa Shah Rukh Khan. Ajay marnaba lama uusan dhicin wararkaasi xanta ahaa, waxaanu si gaara uga carooday qaabka ay saxaafaddu uga hadlayso arrimaha ka saabsan in Shah Rukh Khan xiriir jacayl la yeeshay gabadha ay saaxiibka yihiin ee ay ku og tahay cid kasta oo Bollywood-ka ah. si kasta ha ahaatee, Kajal waxay jacayl waali ah u qabtay Ajay, waxayna yaqiinsatay wax walba oo dhacaya, inkastoo xiriir saaxiibtinimo oo wanaagsan iyo mid shaqo uu kala dhexeeyo Master Shah Rukh Khan. Kajal waxaa si aada ugu dhoweyd dhanka Ajay, mar walbana dhankiisa ayay ahayd, maadaama uu xaalad xun ku jiray waqtigaasi, isla markaana aflaantiisa aysan guulo ganacsi ka samayn box office-ka. shakhsi ku dhow Ajay ayaa sharaxaad ka bixiyay arrintaas. saxaafaddu waxay yaraysay qaabka ay uga hadli jirtay xiriirka jacayl ee ka dhexeeya Kajal iyo Ajay, waxayna intaa badani ka hadlaan xiriirka saaxiibnimo ee ka dhexeeya Kajal iyo Shah Rukh Khan. taasi waxay keentay inuu Ajay aad uga caroodo waxa dhacaya, marnaba uma uusan dulqaadan karin cadaadiska ay saareen oo ahaa mid xad dhaaf ah, maadaama ay saxaafadda keliya ka hadlayso xiriirka saaxiibtiis kale dhexeeya Shah Rukh Khan oo ay ku tartamayeen Bollywood-ka, weliba iyadoo la ogyahay jacaylka ka dhexeeya labadooda. arrintaas waxaa u dulqaataa ninka tegay oo dulqaad Ilaahay u dhaliyey. Ajay tallaabo kama dambays ah ayuu qaaday, waxa uuna sheegay Kajal inay joojiso la shaqaynta Shah Rukh Khan oo aysan filim kale la samayn
mustaqbalka haddii kale ay taasi saameyn ku yeelan karto xiriirkooda jacayl. amarkii uu Ajay ku soo rogay Kajal oo ahaa inaysan filin la jirin Shayruqan waa ay ka aqbashay oo waa ay ka yeeshay jacaylkeedii. ha yeeshee go'aanka ay Kajal qaadatay ilaa intee ayuu sii socday. waxaa soo baxay filinka caanka ahaa ee Kuji Kuji Hotahe oo uu iska lahaa directorka weyn ee Karan Johar, waxaana Kajal lagu wargeliyey inay noqon doonto atirishada filinkaasi. Kajal go'aankii ayay qaadatay Karan Johar waxayna go'aansatay inay filinka la samayso Shayruqan, balse filinkii markii la sameeyey oo masraxa la saaray waxa uu noqday filin hiid ah, weliba misana blockbuster noqday. maxay tahay natiijada ka soo baxday? saxaafadda oo arrinta sii buubuunisay Kajal waxay ahayd qof aad u caqli badan, waxayna go'aan ku qaadatay oo ay ku wargelisay saaxiibkeeda Ajay in ay wada degaan oo ay aqal galaan. waxayna isguursadeen markay ahayd bishii Febraayo 24keedii isla sanadkii 1999. xafladda arooska waxaa lagu wargeliyey inuu ka soo qayb galo Shayruqan, balse waa uu diiday. waxa uuna keenay hadiyadihii loogu talagalay qoftii arooska ahayd. Ajay Devgan xaaskiisa ayuu la aqal galay, waxa uuna ka mid yahay aktarada ugu caansan ee Bollywoodka. tartankii uu kula jiray Tiri Khaniska waxaa la oran karaa waa uu guuleystay. Ajay Devgan iyo xaaskiisa Kajal waa labada lamaane ee sida farxadda leh ku wada nool, waxaana u jooga 2 gabdhood. Ajay Devgan waxa uu dheer yahay aktarada kale ee filimada jile ee Bollywoodka diyaarad qaas u ah oo isaga uu ku aado goob kasta oo uu filim ku sameynayo. haddii ay dhacdo in qoyskiisa ay dalxiis aadayaan ayada ayuu ka haystaa. waxa Ajay iyo Shayruqan khilaaf kala soo kala dhexgalay markii uu Shayruqan sameynayay filinkii Kabhi Kushi Kabhi Gum oo ay la wadan Hrithik Roshan iyo Cali Dheere, isagoo filinkaasi hees ku jirtay. Shayruqan lagu eedeeyey in uu Kajal oo uur lahayd damacsanaa in uu uurka ka soo rido. Ajayna uu yidhi wixiisa filin jilis maahane waxa uu u dan lahaa uurka ay Kajal lahayd inuu bannaanka keeno. Kajalna waxay sheegtay arrintaas inuusan Shayruqan wax qalad ku lahayn, balse directorka filimkii iyo soo saarihii heesta ay qalad ka lahaayeen. Kajal iyo Ajay waa laba lamaane oo ka tirsan jilayaasha filimka Bollywoodka, waana labada aktar ee ka midka ah xidigaha ugu caansan ahna laba lamaane oo isqaba. waxay isku hayaan 3 caruur ah, waxayna ay ku nool yihiin nolol farxad leh. waxaa la oran karaa Ajay guulihii uu ka sameeyey Bollywoodka waxaa u sabab ahaa tartankii asaga iyo ka dhexeeyay Shayruqan oo ahaa mid adag. Ajay oo ahaa xaaska qaba Kajal iyo Shayruqan oo ahaa xidigta kaliya ee filimada ay la sameysay ay noqdaan filimo superhero ama filimo blockbuster. daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa taariikhda koobneed ee dhex martay labada aktar ee caanka Ajay iyo Shayruqan iyo weliba marwada u dhaxda Ajay ee Kajal. daawadayaal ha moogaanina inaad fikirkiina inala wadaagtaan ama taariikhda aad jeceshihiin aad inoo soo dirtaan si aynu idinku soo bandhigno. waxaan kaloo idin sheegaynaa inaad subscribe dhahdaan Saxafi Films oo aad markasta ka dheehataan taariikhda aktarada Bollywoodka ama qisooyinka ka dhaca jilayaasha dalkaasi Hindiya. annagoo isku duuban oo Saxafi Films waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo kulan dambe oo xiiso leh.
قنددي هيسي الرحمن قاضي منتا حتى بقلب تبع في ليسي نية وقصب لابما كقوسو 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 قدي دقورتي markaad qadafigu samaysay markaan qaasku caasumay ayaad qaqaloo cubayday anoo beerka qayb ku siiyey haddaad qadafigu samaysay markaan qaasku caasumay haddaad qalqaloo cubayday قنددي هيسي الرحمن قاضي منتا حتى قلبي تبع في ليسي النية وقصب لابتما كقوسو 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 قدي دقور